iyadoo halka ay ka jirtay dhig badan daatay oo deleystilay dadka cadaawadi ka dhaxaysay iyo marxalad adag oo haddana looga maarmi waayay in gobolka Awdal lagu qabto muxuu ahaa shirkii nabadeynta iyo dib u dhiska Soomaaliland annagu waxaan nahay dhaqanka oo haddana dhaqankana waxaan wada shaqeynaa booliiskuna waxa weeye adeegayaasha bulshada waxaan uga mahad celinayaa sida dalka ugu shaqeeyaan ee bulshada isugu xidhan yihiin ee ay saaxiib u yihiin bulshada aad ugu dhow ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sababtoo ah dalkeenna haddii aan jirin amnigiisu maynaan seexaneen maynaan xaragooneen maynaan cibaadaysaneen wanaa halkan sharaftaa isugu maynaan nimaadneen habeen iyo maalinba waxa u taagan yihiin bulshada wanaaggeeda iyo isku xidhkeeda annaguna la saaxiib baanu nahay oo odayaasha la shaqeeyaanu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray guud ahaanba ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda sanad guurida 13aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maanta waa maalintii ciidanka waa maalin qiimo leh aniga maanta waxaa ii sharafa ama xusuus wanaagsan ah maalintii ciidanka la aasaasayna inaan xeradaas soo deerka lahayn oo geed hoosteeda mararkii qaar u baa ka noole aan ugu khudbadeynayay iyo ciidanku arradan yahay dacsi la wada xidhan yahay wasiirkuna uu lugaynayo raggii halkaanu joognaa waxbaa ka nool maantana halkaynu marayno oo wax ilaahay lagu mahadiyo lagu farxaa ilaahayna waxaynu ka rajeynaynaa inuu inoo sii socdo horumarka hay-adaha dowladda iyo qaranka oo dhan shaqo kale hayaan oo ah xuquuqdeeda la ilaaliya qofna inaanu qof ka xadgudbin xuquuqda dastuurku qofka siiyey muwaadinka ayay booliisku ilaaliyaan oo toogu weyna dadkuna waxay degaan oo nabadu timaada markuu qofku xuquuqdiisa helo waxyaalaha booliiska kor u qaaday inamadii ka soo baxay shaqadii qaran oo ciidamada halka ka galeenba kor u qaaday oo ka dhex muuqda iyo dowladda meesha galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dul istaagay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland doorashada qof walba waxa saaran nabadgelyadeeda bariyaha waxa bilaabay in sawirada ay leeyihiin xisbiyada qaranka iyo ururada in dadka